Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena caafimaadka ee Caafimaad Janal. Soo dhawaada walaalaha qaaliga ah. Waxaan ka hadli doonaa maanta af-urka ama af-qurunka waxyaalaha keeno. Af-qurunku waxaa loo yaqaanaa caafimaad ahaan halitosis. Waa xaalad oo qofka ka soo saaraya afkiisa hawo ureysa, taasoo ka duwan af-urka subaxdii lala soo tooso, taasoo badiyaaba ku baaba'da nadiifinta ilkaha. Af-qurunku ama af-urku ma lahan wax xuduud ah, umana kala sooca dadka da'dooda, noocooda iyo xaaladooda dhaqaalaba. Intaa waxaa sii dheer in af-qurunku uu keeno qofka niyad jab aad u daran, taasoo keenaysa in qofka uu ka fogaado dadka iyo la hadalkoodaba, xitaa uusan u sheeganin dhibaatadiisa dhakhaatiirta. Af-urka qofka waxay ku keenaysaa inuu is-cuqdadeeyo, inuu niyad jab dareemo, inuu dadkii ka dheeraado, inuu qosli waayo, inuu hadli waayo, inuu qof walba cuqdad ka qaado. Badiyaa niyad jabkan waxaa ka dhalata in dadka qaba af-qurunka aysan dareemi karin dhibaatada haysata ilaa ay ka ogaadaan dadka kale, kadibna ay keenaysa in ay ka go'aan bulshada kana doorbidaan kalinimada. Haddaba maxaa keena af-qurunka? Af-qurunka waxaa keeno caafimaad darro ka baxsan ilkaha. Waxaa kaloo keeni karo infekshan ama caabuq ku dhaca jeebabka sanka iyo afka u dhaxaysa ee loo yaqaano sinusitis, ama khalad ka jira qaab dhismeedka lafta oo qofku ku dhasho. Waxaa kaloo keeni kara qumanka ama xoqoda, sanbabada oo qofku ka jiran yahay, khaas ahaan cudurrada malaxda sameeya ee sanbabada. Waxaa kaloo keeni kara qofka kelyihiisa in ay howlgab yihiin, qashinkii kelyaha laga saari jiray oo hawo ahaan loo saaro sida kaadida urea. Waxyaalaha kale oo keeni kara waxaa ka mid ah howlgabka beerka, qashinkii beerka jirka ka saari jiray oo hawo ahaan loo saaro, iyaduna waxa ay sababaysaa in qofka neeftiisa ama afkiisa uu soo uro. Waxaa kaleetoo ka mid ah waxyaalaha keena cudur ku dhaca dhiigga, sidoo kale sonkorowga iyo dadka ka jiran xameedsida. Waxaa kaleetoo ka mid ah dadka qaba kaankarada, ama qofka haddii uu qabo cillad dhinaca dheefshiidka ah, iyadana waa ay keenaysaa in afkiisa uu qurmo ama uu shiiro. Waxaa kaleetoo ka mid ah waxyaalaha keena af-urka ama af-shiirka cunooyinka qaar sida basasha, tuunta iyo cagaarka qaarkiis. Waxaa kaleetoo ka mid ah waxyaalaha keena af-qurunka caafimaad darro ka timid ilkaha, sida qofka in ay ilkaha bololaan ama in uu qofka ciridka ka jiran yahay. Waxaa kaleetoo ka mid ah waxyaalaha keeni kara qofka in uu qabo infekshanka ilkaha, sidoo kale kaankarada ilkaha, iyo qofka in uu qaato daawooyinka keena af-qaleelka. Sidoo kale waxaa jiro cudurro qaar oo keena af-qaleelka iyo daawooyinka sanka lagu dhibciyo. Waxaa kaleetoo ka mid ah waxyaalaha keena af-urka xasaasiyadda caburka keento, iyo bakteeriyada hawo la'aanta oo ku badata afka ama sanka. 90% oo ka mid ah waxyaabaha keena af-qurunka waxay ka timaadaa bakteeriyada qurmiska oo afka ku korto, taasoo ka dhalata cudurrada aan soo sheegay. Waxay bakteeriyadan qumanka ku samaysaa godad, taasoo qashin badan ku ururaan, wuxuuna qofka dareemaa subaxdii qaar in uu tufo wax cadcad oo ur badan markuu xaakoodo. Waxaa habboon in halkan lagu xuso dad badan ayaa cuqdad ka qaba af-shiirka, iyadoo aysan jirin wax cillad ah oo uu qofkii qabo, balse asaga ayaa aaminaya in uu afkiisa shiirayo. Arrintaas waxay ku kalifaysaa in uu bulshada ka go'o, waana wax qofka uu aaminsan yahay. Dadka sidaan ah xaalkooda waa in maskax ahaan loo daaweeyaa. Haddaba waa maxay daaweynta af-qurunka? Si loo ogaado waxa keenay af-qurunka, waa in la helo lana baara haddii ay jiraan caafimaad darro ka timid xagga ilkaha,
kadib ayaa loo gudbi karaa waxyaalaha kale ee keeni kara afqurunka. Sidaas darteed, waxaad u baahan tahay marka ugu horreysa inaad u tagto dhakhtar ku takhasusay ilkaha, maadaama cilladda afqurunka ama af-urka ay ku xiran tahay dhowr shay, ama uu cudur keeni kara ka baxsan ilkaha ama cudur ku saabsan ilkaha. Waa muhiim qofka in marka hore baaritaan loo sameeyo oo la ogaado dhinaca ay ka jirto cilladda, kadib waa in daawo loo qoro. Haddaba qaabkee ayaa looga hortagi karaa afqurunka? Qofka waa in uu ilaaliyo caafimaadka ilkihiisa. Waa in la cadaysado inta aan la jiifan iyo markii lasoo kacaba. Haddii aad isku aragto calaamadaha kale ee la socda afqurunka, la socodsii dhakhtarkaaga. Afqurunku ceeb ma ahan, waana cudur la mid ah cudurrada kale, kumana xirna nadaafad darre oo keliya. Dhakhtar u tag una sheeg waxa aad dareemaysid. Dhakhtarka isagaa kuu sheegi doono haddii ay sax tahay waxa aad dareemayso, ama haddii ay tahay wax aad aaminsan tahay adiga keligaa. Sidoo kale, iska ilaali afqaleylka, una sheeg dhakhtarkaaga daawooyinka aad qaadato. Calaanjiska xanjada aad ayay u wanaagsan tahay, waxayna ka ilaalisaa afka qaleylka, waxayna ka baabi'isaa in uu yeesho ur, waxayna u yeeshaa afka qoyaan. Waan filayaa walaalaha qaaliga ah in aad ka faa'iidaysateen. Toobigan maanta wuxuu ahaa toobig aad muhiim u ah, maxaa yeelay dad badan ayaa waxay ka xishoonayaan in ay dhakhtar u tagaan ama ay dadka la wadaagaan. Waxay xitaa ku kaliftaa dadka inay dadka ka go'aan asxaabtooda ama walaalahood ama qaraabadooda. Qofkii waxaa ku dhacaya niyad jab. Ugu dambeyn, qofkii waxaa laga yaabaa depression inuu ku dhaco, xitaa isku buuq inuu ku dhaco. Qofka marka dambe waxaa laga yaabaa inuu maskaxdiisa dhaawac gaarto. Haddaba, maskaxdaada dhaawac ha u gaarsiinin cillad yar oo fudud oo la xallin karo. Run ahaantii, af-urka ama af-shiirka wuxuu la mid yahay cudurrada kale. Cudur uu Ilaahay keenayna sidiisaba ceeb maaha. Qofka waxaa loo baahan yahay haddii uu cilladan isku dareemo. Badanaa dadka ayaga isma fahmaan oo qof asxaabtiisa ama familkiisa ama walaalkiisa ayuunbaa u sheega. Marka qofkii marka arrintaas uu ogaado uuna xaqiiqsado, waxaa wanaagsan inuu dhakhtar tago oo waxa uu dareemayo iyo haddii ay xanuunahayaan intaba dhakhtarka la wadaago, kadibna laga daaweeyo. Sidaas ayuu qofka afkiisii ku badbaadayaa, maskaxdiisiina ugu badbaadaysaa. Laakiin haddii aad qarsato oo aad dadkii ka go'do, afkaada isku haysato, taasi dhibaato unbay kuu siyaadinaysaa, xitaa maskaxdaadii dhaawac ayay gaarsiinaysaa. Marka ku dadaala insha Allah walaalaha qaaliga caafimaadka afka. Waan filayaa inaad ka faa'iidaysateen toobigan. U shargareeya walaalaha kale si uga faa'iidaystaan. Wassalaamu calaykum. Hana ka iloobina fiidiyowga inaad like saartaan.